kulankan ayaa ka dhacay xarunta dhexe xisbiga talada Somaliland hayo ee kulmiye ee caasimadda Hargeysa madashan oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka sare xisbiga kulmiye xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda Somaliland iyo xisbiga kulmiye haweenka degmada Axmed Dhagax iyo gobolka Hawd ayaa madashan ku soo bandhigayay cududda taageero ee ay u hayaan xisbul xaakimka kulmiye xubno ku hadlay magaca haweenka degmada Axmed Dhagax iyo gobolka Hawd ayaa dul istaagay sida ay hiil iyo hoob ula garab taagan yihiin murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidii mar labaad xisbiga kulmiye u helan lahaa talada dalka jamhuuriyadda Somaliland tamartayda iyo taageerayaashayda adaan kula garab taaganay maanta inta laga bilaabo waxaanu nahay xisbiga kulmiye iyo inta baadaan ku siinayna oo isugu soo abaabulay haweenweynaha Axmed Dhagax inaanu la shaqeyno xisbiga talada dalka ee kulmiye oo aanu siino muruq iyo mug iyo miisaan labadaba annagoo la garab taagan taageero iyo maal iyo mood iyo muruq iyo maskax fara badan ba kulmiye ilaa maalintii kow la asaasay iyo ilaa maalinta maanta aniga dhiigaygu qaaxay Muuse Biixi imikana waan hor taaganahay horena waan hor taaganahay imikana waan shaqeynaa waxaan leeyahay bulshada reer Somaliland hadaa doonaysaan Somaliland inay noqoto qaran jira cidda maanta ay ku suntan tahay ee aan xaqiiqadeeda anigu goobtan ka cadeynaya waa Muuse Biixi Cabdi oo musharax waxaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa maalmaha soo socda ugu bishaareynaya gabi ahaanba dhashi asan iyo hooyooyinkood iyo walaaladooda inay dhammaan iyo muwaadiniinta wadanimada iyo qarannimada jecelba ay meesha kaliya ee ay doonayaan maanta inay codkooda ku hubsadaan uu yahay kursigaaga biidmillaahi tacaala wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka Maxamed Ibrahim Aadan Qabyotire beeraha Dr. Maxamed Awdaahir Ibrahim iyo xildhibaan Maxamed Faarax Xirsi Obama iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere iyo Marwo Canab Cumar Ileeye gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye ayaa madasha ka hadlay markaan degmada Axmed Dhagax gobolka Hawd beelunay yaa inoo musharaxa موسى يوم شرحه موسى لفتيسو حقو كيمي يقول لك هو كيمي marka waxaan dooranayna marayaan leeyahay reer Axmed Dhagax iyo reer gobolka Hawd inaan keenay baan dooranayna isaga inuu codka siinayna waxa way afar dalado waxay ku duuboobeen dalada yiraahdo waa dawadaag dalad kasta waa 10 urur waa haween ku dhow ilaa 50,000 waxay sameeyaan contribution urur waxba iska ururiyaan hadba qof bay caawiyaan waa ururo dhan oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax waa jamaahiir muddada maanu ka daba wareegaynay maanta waxaan qabaa cod ku dhow 100,000 haddaynu ka rabno Axmed Dhagax ilaa Maxamuud Haybe ilaa eeriyada soo sidaa maaha ururadii dawladda waa ka helayaa waka aad iyo aad baan u hambalyeynaya haweenweynaha iyo inta kalaba ee maanta kulmiye ku soo biiray aad iyo aad baan u hambalyeynaya dumarku codka dalka iyaga ah kay doonaan iyaga saara kay doonaan maanta marka hadda doorateen Muuse Biixi Cabdi saartan waxaan qabnaa in madaxweynaha mustaqbalka dhow noqon doono xisbi ahaan iyo qaran ahaan iyo dal ahaan waxaan ugu daba taagan Muuse Biixi waxay wax kala maahe inuu dalku dhismo oo qaran dhismo oo dawlad madhisato oo miisaanadu cirka tagto oo caruurtu isku hesho oo caafimaad bilaash helo oo aynu helo i'tiraaf degdeg ah nahay xisbiga kulmiye hoggaankiisa gobolka Hawd iyo Axmed Dhagax waxay noogu tirsan yihiin xisbiga kulmiye inay mar walba waxay leeyihiin gobolka Hawd iyo Axmed Dhagax 100% dadkii u codeeyay xisbiga kulmiye bay kamid ahaayeen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waa xisbigiinii kusoo dhawaada عبايسة محل هلايا أحمد Dhagax عبايسة كده أيوة نلاقي ضربة كده واحدة وابك هاي لقالين هذا جنتي ليش أي مسكلة دي إنه هذا واحد يكون فرحسن هاي حملها يستصلح القامي يو حملها كسر بحي حاجة حسب جماعات كأ أنت بقى بانو فرحسن يا أنت كلاي من دوتنا
guddoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey haweenka degmada axmed dhagax iyo gobolka hawd ee taageeradooda cod iyo cududba la garab istaagay xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye haweenweynaha gobolka hawd ee xafladda soo abaabulay ee iyagu soo qorsheeyey inay xisbiga kulmiye taageeraan ay codkooda ku biiriyaan maanta si kaliya laab halka laga muujiyey aad iyo aad baan uga hortaqaynaa jazaakumullaahu khayr haweenka masalaabo waxaan ku idhi haweenka waan qadariyaa waanan ka xishooda qofka uu qadarinu hayo ama uu ka xishoonayo xataa indhihiisa ma wada fujiyo hadduu salaamaya iyo hadduu barayaba haweenkuna sidoodaba dhaqankeenna iyo diinteenna waxay mudan yihiin qadarin iyo xishood iyo in laga dhowso marka iyaa taa waxaan leeyahay cidda aan ugu qadarin badanahay bani aadamka nool waa hooyadii waana noosha hooyo gabadh waliba oo hooyihiiba waa hooyadoo kale markaa inuu walino waa walaashay ma muranno hawxa kuma idhaahdo koruma eego waxay ii soo jeediyaan waa qor-aan oo kale eraygaa dumarka ma ogolo waxaan kale waan qadariyaay iyo inaga qaldamin xagga siyaasadda maxaan ka ogolahay dumarka maxaan ka ogahay horta dadka ku nool somaliland boqolkiiba dhowr iyo konton baa dumara mar hadday yihiin dhowr iyo kontonkaasi dumar waxaa ogaaya dadka ummadda ugu badan yihiin waayo ilaahay baa awoodda inay adduunka tarmiyaan oo dadka badiyaan oo ay horumarka badiyaan oo meel hadda joogo dadweynaha dadka abuura ee haya ee dhala ee kooriya ee dadka dhiga waayo wahawe ma qoslo wax kale horta malaa qofka biniaadmiga dabeecad iskaleeya oo laga yaabaa qofku iska wajaadeg yahay marmarba qoslo oo laga yaabaa qosolka uga badnaa laakiin qosolka waxaan u jeclaysanaynba horta anigu ama qabri joogo inta xasiiro qosli kara maayo ilaahay baa ilaah malihin dabeecadda anigoo ii dul taagan oo qofkana jeclaa la aasayo inaad tacsiisa ku dul qoslo dabeecaddaa ilaahay shirkaaynu isugu nimid iyo xisbigenimadeena iyo doorashada maxaynu ka doonaynaa waxaynu tabanana inaynu in badan tabashada ka yarayno noloshu waa halgan maalin qorigaa lagu dagaalamaa oo naftaa la dhiibayaa oo loo dhimanaya xorriyad waxaa laga doonayaa dhimashada in la helo noloshaa lagu jiro mid ka wanaagsan in ubadka looga tago hadday shalay toola ahayd tii dagaalku socday aynu wada qaxootiga ahayn aynu banaanka wada fadhinay maanta ugu yaraan guryaro waynu fadhinaa taclayna waynu habsanayn oo aynu raadinaynaa sidii hore waynu ka deganna laakiin weli wixii aynu halgamayna waa fog yahay oo geedigu waa dheer yahay ayaan la soo gaabin